dhabar xanuunka ama waxa loo yaqaano back pain inta ugu badan wuxuu uu ka soo muuqdaa ama qofka uu tilmaamaa in xanuun ugu taagan yahay dhabarka qaybta loo yaqaano lumbar spine qaybtaasoo ah qaybaha hoose laf dhabarta inta ugu badan qofka in dhabar xanuun uu sheegto wuxuu isku arkaa in si fudud uusan u istaagi karin marka uu damco inuu istaago in xanuun uu qabanayo sidoo kale in qofkaas uu socon karin sidoo kale qofkaas inuusan foorarsan karin xanuun uu dareemayo dhabarka iyo inuu isku arkayo in wax lagu mudayo sida guud marka ay dhacdo in qofka dhabar xanuun uu isku arko waxaa lala xiriirin karaa marxaladan inay sababtay ama ay ku imaade siyaabooyin kala duwan soo dhawaada saaxiibayaal waa anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed marka koowaad inta aanan guda gelin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad waxaan idin ka codsanaa like-ta follow-ga subscribe-ka YouTube channel-kayga iyo Facebook-ga inaan laga hilmaamin lana baqiilin sidoo kale wixii su'aal iyo talo iyo aragti aad u baahan tahay waxaad iga soo weydiin kartaa YouTube description-kayga iyo Facebook page-kayga aad iyo aad aan kaga mahad celinaa dhammaantiina waxaan idin rajaynaa khayr caafimaad iyo barwaaqo in qofka uu dareemo dhabar xanuun hadii jeer wuxuu uu tilmaamaa qaybta loo yaqaano lumbar spine ama lumbar region xanuunka qofka dhabarka ka qaban karo waxaa loo kala bixin karaa laba qaybood mid loo yaqaano acute back pain in qofka mid ku cusub uu yahay in ka yar 12 isbuuc 2 bil ilaa 3 bil ama 4 bil in ka yar in lagu arko xanuunkiisa taasoo ah acute back pain sidoo kale in qofka lagu arko wixii ka badan 12 isbuuc 6 bilood 5 bilood ama 4 bil wixii ka badan waxaa loo yaqaanaa chronic back pain inuu xanuunkiisa dhabarka uu noqdo mid aad ugu daaha dhabar xanuunka inta ugu badan hadii jeer bukaamada waxa ay tilmaamaan qaybta loo yaqaano lumbar regionka ama lumbar spine taasoo ah qaybta hoose ee dhabarka waxyaabaha ugu badan ee sababi kara in qofka uu dhabar xanuun uu sheegto waxa ugu horeeyo culays mar walba uu qaado ama miisaan mar walba uu qaado hadii qofka uu ku jiro nolol maalmeedkiisa in xamaali uu yahay ama miisaan badan dhabarku uu saarayo waxa ay keeni kartaa vertebral discska in vertebrayaasha ama lafaha laf dhabarta isa saaran inay aad iskugu soo riixmaan taasoo ay dabcan ee suurtagal ay tahay in cartilage-ka ama carjawdu ku jirto ee booskeeda ay ka dhaqaaqdo banaankana ay u soo baxdo qofkana waxa uu dareemaa waxa loo yaqaano dhabar xanuun arintaasna waxa loo yaqaanaa lumbar herniated disc sidoo kale qofka in uu dareemo xanuun dhabarka kaga taagan yahay waxa la xiriirin karaa fadhiga badan uu qofka uu fadhiyo in ka badan 10 saacadood hadii uu ku jiro shaqooyin fadhi ah qofka waxa uu dareemaa in xanuun ugu taagan yahay dhabarka marka uu damco inuu kaco sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan kara in qofka dhabar xanuun uu ku soo laabto waxa ugu horeeyo waxa loo yaqaano rheumatoid arthritis in lafa xanuun uu qofkaas hore uu qabay kala baxayda ay xanuunayeen lafaha ay dikaamayeen waxa suurtagal ah inuu ugu soo darsoomo low back pain ama in dhabar xanuunkiisa uu saaid noqdo sidoo kale in qofka lagu arko dhabar xanuun saaid ah waxa kale oo ka qayb qaadanayo waxa loo yaqaano osteoporosis in lafiisa ay jilcaan awood badan aysan lahayn vitamin D-ga ama calcium-kana jirkiisa uu ku yaraado sidoo kale inta ugu badan dadka markay dhabar xanuunka ay sheegtaan waxay ku arkaan qaybtan loo yaqaano lumbar spine waana qaybta ugu badan ee dhaqdhaqaaqa qofka marka uu sameynayo haday noqon lahayd socod haday noqon lahayd in miisaan uu jirkiisa uu qaado waxa ay ku dhacaysaa ama si toos ah u saameynaysaa qaybtan lumbar spine waana meesha ugu xanuunka badan sidoo kale qofka hadii uu laf dhabarta neerfayaasha marayaan jug ay gaaraan ama trauma waxa suurtagal ah in dhabar xanuun uu imaado dikaan uu imaado hur uu ka dareemo meeshaas taasoo compression badan noqotay ama cadaadis badan lagu sameeyay muruqihii meesha ku hareereysnaayo seedihii dhaxmarayay iyo neerfayaashii ku jiri in ay noqdeen kuwa cadaadiskoodu aad u saramaro meeshan uu caabuq uu ka dhashay sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo waxa kamid ah in qofka trauma ee gaartay
ama dhaawac uu soo gaaray dhanka iyo murqaha ku hareereysan laf dhabarta, in qofka uu noqdo muscle straining uu ku dhacay, murqihiisa aad ay u kala jiidmeen, muscle spasmodic ay dhacday, in murqaha ay aad u adkaadeen, taasoo ay sababta jugta. waxaa dhici karta in qofka xanuun uu dareemo neerfayaashii, sidoo kale qofka inuu istaagi waayo, dhabarkana xanuun ama oodin ay ugu taagan tahay. sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan karo in qofka dhabar xanuun uu dareemo waxaa ka mid ah infections ku samaysma qaybaha kala duwan ee kaadi mareenada, in keliyaha infections uu ka dhasho ama dhagaxaan ay dhex degaan ama ku samaysma, in muddahana qofku uu iska daaweyni waayo. waxaa suurtagal ah in qofkaas dhabar xanuun uu la kowsado, xanuun mar walbana uu qabto. sidoo kale in qofka uu iska daaweyni waayo dhanka iyo taranka xanuunadu ku dhaco, waxaa ayadana macquul ah inuu soo muuqdo dhabar xanuunka. marka laga fiiriyo dadka ugu badan ee khataraha u gali kara mar walba dhabar xanuunka inay ku dhacaan ama ay kasoo muuqdaan, waxaa ugu horeeya dadka da-da ah, kuwaasoo murqahooda, lafahooda, seydahooda ay aada u jilceen, taasoo awood ahaan jir ahaan ee difaacooda uu aada u yaryahay. waxaa suurtagal ah mar walbo marba ka dambeysa in qofka marka uu da-yahay in dhabar xanuunka uu ku bilowdo xanuun, dikaan, kabaabi lagu arkayo. sidoo kale dadka khataraha ugu jiro dhabar xanuun inuu ku dhaco waxaa ka mid ah dadka cayilan, fadhigoodana badan yahay, sidoo kale dadka sigaarka cabo, daawooyinka kala duwan isticmaalo, alcoholismkana cabo. waxaa had iyo jeer lagu arkaa in dhabar xanuun badan ay la kowsadaan ama ay khatar u gali karaan. calaamadaha aadka u daran uu qofka isku arki karo marka ay noqoto in dhabar xanuun uu kasoo muuqdo waxaa ka mid ah in qofka dhabarka xanuunkiisa uu dareemayo in wax lagu mudaayo uu u arko, ama oodin dhanka hoose inay ugu taagan tahay. sidoo kale in ay durayaan waxyaabo qodxo camal ah. sidoo kale in qeybaha hoose simaha uu xanuun iyo dikaan iyo hur uu ka dareemo. sidoo kale in qofkaas uusan si fiican u istaagi karin, ama uu u arko in markuu istaago xanuunkiisa uu soo saa-idayo. sidoo kale in qofka uusan socon karin. dhammaan marxaladahan waxay ka tarjumayaan calaamadahaas siyaabooyin kala duwan in marxalad caafimaad daro ee ugu jirto dhanka iyo dhabarka. inta ugu badan xanuunada daaha ee lafdhabarta hoose ku dhaco waxaa ka mid ah lumbar stenosis, in qofka lafdhabarta gudaheeda cariiri ay noqdeen, xubnihii ku jiri, murqihii ku hareereysanaay, neerfayaashii dhex maray, in si toosa aysan space u lahayn, istaabanayaan, cariiri uu ka dhashay, qofkana uu dareemayo. sidoo kale waxyaabaha kale marka uu qofka xanuunka aada ugu bato waxaa dhici karta inay jirto wax loo yaqaano lumbar herniated disc, in carjowdii meesha ku jirta ay samaysay balkin ama banaanka ay usoo baxday, taasoo cadaadis ugu imaada lafdhabarta kore iyo midda hoose, labada lafood dhexdooda, in macnaha cadaadis uu ka dhashay, carjowdiina ay dabcan ay noqotay mid banaanka u baxda ama booskeeda ka dhaqaaqda. waxaana loo yaqaanaa midaas lumbar herniated disc. sidoo kale waxyaabaha kale ee ka qayb qaadan kara in qofka dhabar xanuunkiisa in 4 bilood uu ka sarmaro waxaa ka mid ah lumbar spondylosis, in ay dhammaadeen lafdhabartii iyo diskiskii isa saarnaay, in meeshaas ay ka dhacday xanuun saayida. haddaad ku aragtid in qofka xanuunkiisa uu soo saa-idayo, sida inay kaadida ay ka baxsanayso, sidoo kale in neerfaha ay dikaamayaan, kabaabyo badan uu isku arkayo, sidoo kale in miisaankiisu aada usii yaraanayo, uusan kici karin qofkaas, socod badan uusan jirin, foorarsan karin, waxay ka dhigan tahay in neerfayaasha gudaha dhaawac ama ay jirto waxyeelo. inta ugu badan qofka waxaa muhiim ah inuu qaato talooyinka dhakhtarka iyo daawooyinka sida loogu soo qoray inuu u isticmaalo. siyaabaha kala duwan ee baaritaan loo sameyni karo waxaa ugu horeeya qofka CT scan in la saaro haddii ay jirto lafdhabarta waxyeelo, si loo ogaado qaababka ugu habboon ee loo daaweyni karo. sidoo kale daawooyinka ugu habboon iyo waxyaabaha ugu habboon qofka uu sameyni karo waxaa ka mid ah in qofka uusan ku seexanin joodari, taasoo suurtagal ah dhaqdhaqaaqiisa inuu yaraado, dhinacna uu u seexdo. sidoo kale in qofka uu socodka uu badiyo, almeynto yar oo fudud ama jimicsi yarna uu sameeyo.
sidoo kale qofka inuu iska yareeyo haddii miisaankiisu aad u badan yahay inuu ku dadaalo in miisaankaasi uu yareeyo. sidoo kale in daawooyinka neerbiyoonka ama fitamiinaadka aadka u saacidaya cadaadiska neerbaha inay yareeyaan sida fitamiin B1, B6 iyo B12 qofka inuu isticmaalo. sidoo kale inuu isticmaalo kareemiska xanuunka baabi'inayo si ayaroo fudud inuu qofka ugu diliigo dhabarka ilaa ay qaybta xanuunayso. sidoo kale inuu qofka isticmaalo pain reliefka in waxyaabaha xanuunka baabi'iyo inuu qofka u qaato. sidoo kale in qofka uu isticmaalo waxyaabaha supplementary-ga sida vitamin D iyo daawada loo yaqaano glucosamine taasoo soo celisa carjawdi iyo in lafihii aysan dhammaanin dhexdoodii carjawdi ku jirta. sidoo kale qofka inuu qaato daawooyinka murqaha iyo xanuunka iyo seedaha baabi'inayo gaar ahaan kuwa loo yaqaano baclofen. sidoo kale qofka gaar ahaan kuwa loo yaqaano biclofen. sidoo kale qofka inuu qaato daawada neerfaha xanuunka yareynayso gaar ahaan nooca loo yaqaano pregabalin si xanuunka iyo dikaanka iyo hurka ugu yaraado. saaxiibayaal halkan ayaan kusoo gabagabeynaynaa mowduuca la xiriira dhabar xanuunka. haddii alla idmo mowduucyo kale ayaan kasoo diyaarin doonaa. waxaana idin rajeynaa kheyr iyo caafimaad iyo barwaaqo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.